Assalaamu calaykum. Halkan waa kanaalka cilmi baaris. Ku soo dhawaada daawadayaal macluumaad xiiso badan oo ku saabsan dayaxa. Dayaxa waa shayga inoogu dhow marka loo socdo dhanka hawada sare. Waa shayga ugu iftiinka badan ee noo muuqda marka laga soo tago qorraxda. Dayaxu aad ayuu uga fog yahay dhulka aynu ku noolnahay, balse waa mid dhow marka loo fiiriyo meerayaasha kale ee aadka u fogfog. Masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa waa in ku dhow 400,000 oo kiiloomitir. Dayax gacmeedyada ay farsameeyaan dawladaha horumaray waxay ku qaadataa muddo 8 saacadood ah inay gaaraan dusha sare ee dayaxa, isaga oo weliba jaraya xawaare dhan 58,000 oo kiiloomitir saacadiiba. Laakiin ka warrama haddii diyaaradaha dheereeyo loo diri lahaa dayaxa, imise ay ku qaadan lahayd inay tagaan? Waxaa la sheegaa in haddiiba ay macquul tahay ay diyaaradaha ku qaadanayso muddo 32 maalmood ah oo aanay hal mar istaagaynin in ay tagaan dayaxa. Sidoo kale ka waran haddii loo diro gaari ku soconaya xawaare ka badan 90 kiiloomitir saacadiiba, imise ay ku qaadan lahayd? Haddaba jawaabtu waa waxay ku qaadan lahayd 6 bilood oo aan hal mar gaarigu istaagin. Sidaas oo ay tahay, haddana dayaxu waa shayga inoogu dhow marka loo socdo dhanka hawada sare. Dayaxu wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dhulka aynu ku noolnahay. Kaliya ma ahan inaan iftiin ka helno iyo inaan ku tirsanno bilaha, balse wuxuu ka qayb qaataa isku dheelitirnaanta miisaanka shayaasha dhulka dushiisa saaran. Wuxuuna ka qayb qaataa hirarka badda iyo dhaqdhaqaaqa dabaylaha ka dhacaya dhulka iyo badaha. Haddii uu dayaxu ka fogaan lahaa inta uu dhulka hadda u jiro, waxaa gebi ahaanba isbedeli lahaa badaha iyo biyaha dhulka dushiisa saaran. waxaana adkaan lahayd in maraakiibtu badaha ku dul sabeeyaan. Sidoo kale haddii uu wax yar ka soo dhawaan lahaa meesha uu hadda joogo, waxaa dunida oo dhan harqin lahaa badaha iyo webiyaasha, waxaana ka dhalan lahaa fatahaado badan. Dayaxu wuxuu cabir ahaan la egyahay 4 meelood meel dhulka ka mid ah, taasoo ka dhigan inuu la egyahay dhulka oo 4 loo qaybiyey meel ka mid ah. Dusha sare ee dayaxa waa mid qallalan oo manana ah, sidoo kale aanay ka jirin wax nolol ah, sababtoo ah halkan kama jirto oksijiin ku filan. Markaad joogto oogada sare ee dayaxa, waxaa korkaaga ka muuqanaya hawo madow ah oo maran, sababtoo ah dayaxu ma lahan atmosfeerka koreeya sida dhulka oo kale, kaasoo u muuqda qaab buluug ah. Dayaxu ma lahan iftiin dabiici ah, balse waa mid iftiinka ka hela qorraxda, kadibna sida muraayadda oo kale ku soo celiya dhulka, taasoo ka dhigaysa in dayaxu iftiimo xilliga habeenkii. Cimilada dusha sare ee dayaxa waa mid aad u kulul xilliga maalintii, sidoo kalena waa mid aad u qabow xilliga habeenkii, maadaama uusan lahayn atmosfeer ama gibilka difaaca kulaylka qorraxda. Markaad fiiriso dayaxa dhammaystiran ama 14aadka ah, waxaad arkaysaa wax u eg qaabka geedka oo kale, taas oo dadka qaarkiis si qaldan u fahmeen. Laga yaabee inaad marmar uun maqashay qof dhahaya dayaxa waxaa ku dul yaalla geed, kaasoo qof kasta ku leeyahay caleen. Markii uu qofkaas dhintana caleentiisa ayaa soo go'i doonta. Laakiin arrinku waa mid ka duwan sidaas. Waxyaabahaasi ku muuqanaya ee qaabka geedka oo kale waa godad ama boholo waaweyn oo ka jeexmay dusha sare ee dayaxa, taasoo sababtay dhagxaanta cirka ka soo daata ee loo yaqaan niyaasiga ama walxa cireedyada oo kumanaan sano ku soo duldhacay dayaxa, taasoo qayb ka mid ah oogada sare ee dayaxa ka dhigtay mid raf ah ama jajaban. Waxayna u muuqataa meel uu 100 sano dagaal ka socday marka loo fiiriyo dhagxaanta dusheeda ah. Dayaxa dhulka waa kan ugu weyn dhammaan dayaxyada meerayaasha
bahda qoraxda midaysay, kaasoo la dhihi karo wuxuu ka wan yahay meerayaasha yaryar qaarkood. cufis jiidadka u dhexeeya dhulka iyo dayaxa ayaa keena mawjadaha badda. taas mid la mid ah ayaa keentay isku xirnaanshaha labadooda. dayaxa oo ku socda xawaaro dhan 1.22 kilomitir ilbiriqsigiiba ayaa waxay ku qaataa 27 maalmood, 7 saacadood iyo 43 daqiiqo inuu hal mar ku wareego dhulka. dhinaca kale, maadaama dayaxa cirkiisu aad khafiif u yahay, fallaaraha qoraxduna ay toos u soo taabanayaan oogada dayaxa, ayaa heerkulkiisu aad u sarreeyaa. waxa uuna gaaraa xilliga maalintii 106 digrii Celsius, halka xilliga habeenkii uu yahay mid aad u qabow, maadaama dayaxu lahayn atmosfeer kaydiya kulka qoraxda. qabow daran ayaana ka dhaca xilliga habeenkii, kaas oo ebirta ka hooseeya 180 digrii. jirka dayaxu wuxuu ka samaysan yahay isku dhisyo kala duwan, kuwaas oo u badan curiyaasha kala ah argon, helium, sodium, potassium, hydrogen iyo radon. markii ugu horeysay taariikhda bini'aadamka sanadii 1959 ayaa dayax gacmeed ruushku leeyahay tegay dusha sare ee dayaxa. kadib 1968 ayaa qofkii ugu horeeyay cagaha saaray dusha sare ee dayaxa, kaas oo ka socday dowladda Mareykanka. sanadkii 2004 wixii ka dambeeyay ayaa wadamada Japan, Hindiya, Shiinaha iyo Yurub saldhigyo ka samaysteen dayaxa. inkastoo dayaxu lahayn cir sare oo ka difaaca kulka qoraxda, cilmi baaris la sameeyay waxay muujisay in dayaxu leeyahay biyo laga heli karo cirifyada dayaxa iyo oogada sare ee dushiisa.